kulliyadda culumta kombiyuutarka jaamacadda banaadir waxay diyaar u tahay inay bulaaliso hibadaada iyada oo ku siinaysa cilmi isugu jira xirfad iyo aqoon. kulliyadda culumta kombiyuutarka oo ilaa 2003 soo saaraysay dufcado ka qalin jabiyey qaybaha ay ka kooban tahay ayaa kugu yeeraysa inaad ku soo biirto. adduunkan casriga ah wax kasta waxaa ku socda tiknoolajiyeyn. inta badan nolosha qaybaheeda kala duwan waxaa saamayn togan ku leh tiknoolajiyadda casriga ah, wada xiriirka dadka, kaydinta ama dadla wadaagidda xogaha, xayisiinta ama suuqaynta, wax dukumiintiyeynta, sugista ammaanka shakhsiga ah iyo kan guud, isku xirnaanta maamulka iyo wax soo saarka, iyo wax kasta oo la xiriira qurxinta iyo horumarinta nolosha koonkan. hadda waxaa bilaa waa culumta kombiyuutarka ee tiknoolajiyadda. sidaa darteed barashada kombiyuutarka waxay lafdhabar u noqotay wax kasta oo kale, xitaa barashada culumta kale. adduunkan qof aan isticmaali aqoon kuna shaqayn aqoon kombiyuutar waxa uu ku socdaa inuu nolosha ka haro ama uusan ka gungaarin miro badan oo faa'iido xambaarsan. waa sababta ay jaamacadaha bixiya koorsooyinka la xiriira kombiyuutarka u buuxdhaafaan, waayo wuxuu waayo iyo waqtiyo soo maray koonkan. hadda waxaa la joogaa waxa lagu yidhaahdo afka Ingiriiska information age, cimriga xogta. mustaqbalka dhow way adag tahay inuu qof ka helo adduunkan shaqo sharaf leh ama fiican oo leh mushaar wanaagsan isagoon lahayn xirfad kombiyuutar ama wax kale oo ka mid ah tiknoolajiyadda casriga ah. haddaba kulliyadda culumta kombiyuutarka ee jaamacadda banaadir waxay xil weyn iska saartay inay ardada baranaysa kombiyuutarka ku qalabayso xirfad sare, aqoon iyo karti ay suuqa shaqada si fiican uga noqdaan hodan. haddii aad nagu soo biirto waxaan leenahay 3 qayb oo kulliyaddu ay ka kooban tahay, kuwaas oo hadba midda aad is leedahay hibadeeda ayaad leedahay ama waad ku fiican tahay xirfad ahaan aad ka dooran karto, sida computer science, information technology ama IT, iyo business information technology PIT. aad ayay u adag tahay in qof si dhaba u bartay cilmiga kombiyuutarku ku ahaado shaqo la'aan meesha uu joogo. inta badan ardayga ku hubaysan cilmiga iyo xirfadda kombiyuutarka waxaa u baahan bangiyada, isgaarsiinta, macadyada waxbarashada, hay-adaha dawliga ah, hay-adaha aan dawliga ahayn, iyo goobaha ganacsiga iyo wixii la mida. marka aad nagu soo biirto kadib waxaad qaadan doontaa daraasado isugu jira muxaadarooyin iyo baraatiko si aad u noqoto qofka aan rabno inaad noqoto 4 sano ama 8 semester kadib. laakiin si aad nooga mid noqoto waxaad u baahan tahay inaad haysato shahaado dugsi sare, inaad haysato warqad asluub wanaagga dugsiga sare, inaad noola timaado 6 sawir, inaad noo keento fayl ama gal lagugu xareeyo dukumentiyadaada, inaad iska shubto lacagta diiwaangelinta ah, iyo inaad ka gudubto imtixaanka aqbalaadda jaamacadda. sidaan horay kuugu sheegnay waxaan bulaalinnaa hibada bani aadamka ee waan ku sugaynaa nagu soo biir.